maamulka sare ee wakaalada dekedaha Somaliland ayaa xaflad abaalmarin oo ay ku siinayaan ugu qabtay hotelka Mansour ee magaalada Berbera qaar kamid ah shaqaalaweynaha ka howlgala wakaalada dekedaha Somaliland oo ah qaybta ay Somaliland maamusho shaqaalahani oo muddo sanad iyo 3 bilood ay tababar siinayeen khubaro ajnabi oo dalka dibadiisa laga keenay isla markaana kamid ah shirkadda weyn ee arrimaha badaha ka shaqeysa ee P&O shaqaalahani oo la baray qaabka maraakiibta loo soo xidhiyo qaabka taagaga dekada maraakiibta ku soo xidha loo kaxeeyo ayaa waxa xafladaasi loogu qabtay hotelka Mansour ee magaalada Berbera waxaana ka soo qayb galay xafladaasi mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo marti sharaf aad u tiro badan iyo shaqaalaha wakaalada dekedaha Somaliland ee Berbera ugu horreynna waxa faahfaahin ka bixiyay xafladaasi abaalmarinaha lagu guddoonsiinayay shaqaalaha maarayaha guud ee hay'adda dekedaha Somaliland Saciid Xasan Cabdilaahi maadaama oo shaqada aan qaranka u haynaa tahay mid miisaankeeda iyo culayskeeda leh waxaanu nahay shaqaalaha ka shaqeeya marinka ay wax u soo maraan dhammaan shacabka reer Somaliland oo dhan qarankani ka kooban yahay iyo mandaqada geeskaba sida wada ogtiinba sanadkii hore waxaanu keennay taag weyn oo casri ah oo ka duwan taagii hore aanu haynay dabadeed waxaanu ku dadaalnay sidii aanu taagga ay uga jaan qaadi lahaayeen shaqaalihii hore ee dekedda dabadeed waxaanu samaynay maadaama shaqaalaha iyagu ay aad u fara badan yihiin waxaanu ugu talagalnay oo aanaan scholarship u wada diri karayn inaanu macallimiin khubaraha dibadda uga keenno oo aanu uga keenno shirkadda weyn ee P&O Maritime kuwaasoo tababar ku siiyey halkan dekedda Berbera muddo ka kooban sanad iyo 3 bilood alxamdulilaahi rabbil caalamiin maanta waxay soo saareen shaqaale u carbiyeysan sidii ay uga shaqayn lahaayeen heer caalami oo aynu la jaan qaadi lahayn dekedaha caalamka waxaa noo suurto gashay inaanu soo saarno taagmasaro iyo injineero iyo dhammaan shaqaalaha ay ka kooban tahay departmentada ay ka kooban yihiin sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno kamid ah shaqaalahan tababarka loo soo xidhiyay isla markaana abaalmarinaha la guddoonsiinayay iyo waliba labada macallin ee ajnabiga ah ee tababarka bixinayay runtii xafladan lagu soo xirayo koreyladii dhanaa ee labada sano la waday waxaa ku guulaystay oo dhammaystay anaguna aanu siinay iyo khubaro kale paylotyada oo 6 ah 28 muurinka ah 24 taagga ah 5 faatid oo isu jira oo 32 ah 5 GPS waxaa la yidhaahdaa vessel traffic system sida loola xiriirayo maraakiibta iyo sida loo soo gelinayo sida loogu soo hagayo dekedda iyo 5 laashka guud ahaan waa 100 qof from Dubai P&O Marine Authority we came to join a Somaliland project marine site and also tugboat delivery from Turkey and a part of delivery we conduct training for 1 year now for tug masters and tug engineer. I can say thank you for all marine staff, all for SPA. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Rahman Rahim. My name is Engineer Katembo from Tanzania. I work for P&O Maritime. I'm a marine engineer by professional. We keep since last year to conduct training for the set of tug masters and tug engineers. Alhamdulillah, our training is successful and now we have come to the end of our training. training يعني aan hore Soomaaliland uga dhicin wuxuu ahaa training lagu laxaadsaday oo waxba laga hankan in la soo saaro dad mustaqbalka qaybta maarinka ee dekedaha Somaliland
hanan lahaa ee gaadhsiin lahaa dekedaha caalamiga waxay muuqataa inaynu ka guuray dekedeenu local ka guuray oo aynu u soconno inay noqono international port inay noqono ayaynu muuqataa waxay taasi sababaysaa in siyaabo badan oo fara badan wax looga barto ama wax looga ogaado annaga waxaan u malaynayaa qodada badda farxad weyn bay noo tahay aan la mid ahayn farxadda dadka kale waayo anigu waxaan ahay ehelkii badda aan nahay aniga iyo ninka la yidhaahdo kabtan cabdiraxmaan iyo siciid iyo idriis hadduu joogo waa xaflad dhiirigelina runtii waxaan marka ugu horeysa mahadnaqaynaa ilaaha raxmaanka weyn mar labaadkana waxaan u mahadnaqaynaa madaxda dekedaha somalilan oo ugu horeeya maareeyuhu oo ku xigo maareeya ku-xigeenku iyo dhammaanba madaxda kale ee maamulka kula jirta garashada ay garteen marka laga yimaado hawsha ay hayaan inay shaqaalaha dhiirigeliyaan marka hore ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala marka labaad maanta waxaynu aanu la dabaaldegaynaa oo aanu la farxaynaa oo aanu dhiiri gelinaynaa shaqaale weynaha s b i somaliland port authority ayaanu la dabaaldegaynaa maamul haddaad aragta maamul waa maamulwaadka isbeddel sameeya ee wixii loo dhiibay wax ka bedela sidaa awgeed waxaanu ilaahay subxana wa tacaala uga baryaynaa maareeyaha iyo inta la shaqaysta ee ka hoos shaqaystaba inuu ilaahay subxana wa tacaala isagu bedel khayr qabo ugu siiyo waxaan leeyahay marka hore horta hambalyo ragga tababarka qaatay marka koobaad waxaan ugu hambalyaynayaa waa maareeyaha dekedda oo runtii dee lasoo wada sheeg raggii iga horreeyey oo dhanba way ka hadleen laakiin asad baa maanta halkan asad ay dowladdu leedahay oo dad ah ayaa halkan inoo jooga maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star t v magaalada berbera.